qodobkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa maaraynta waqtiga. Inta aadan muuqaalka u gudagelin, fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto si ay u gaaraan warbixintan saaxiibo adiga oo kale ah. Ka soo qaad maanta inaad jirto 80 sano. Waxa hubaal ah in 27 sano oo ka mid ah cimrigaaga aad hurdo ku soo qaadatay, 20 sano kalena waxbarasho ku bixisay, 7 sano oo kalena aad ku qaadatay cunis, safar iyo sheeko. Cimrigaagii 80 sano ahaa markii sidaas loo sarifo waxa kuu soo haraya 26 sano oo laga yaabo inaadan uga faa'iideysan sidii ugu waxtarka badnayd ee aad awooday. Haddaba dhageystay, si aan ugu faa'iideysano waqtiga kooban ee Allah ina siiyay, mudnaan u kala samee noloshaada oo isweydii maxaa ku muhiim ah, sida cibaadada Alle, shaqadaada ama ganacsigaaga, aqoonta iyo kobcinta garaadkaaga, daryeelka qoyskaaga, horumarinta xiriirka aad la leedahay bulshada, joogteynta jimicsiga iyo warqabadka caafimaadka. Qiimaha waqtiga uu leeyahay waxaa noo iftiimisay diinteena Islaamka sida ay isugu xirtay cibaadooyinka adoonka Ilaahay ku waajibiyay iyo waqtiga laga rabo mid kasta inuu guto. Salaada waxa ay leedahay waqtiyo cayiman, soonka iyo xajku waxay leeyihiin bilo u gaar ah, sakaduna waxay waajibtaa sanadkii hal mar. Haddii uusan adoonku u gaansamin mid kasta waqtiga loo xadiday, waa adag tahay in laga aqbalo. Sidoo kale Eebe wuxuu ku dhaartay waqtiga sida uu bini'aadamka u tuso ahmiyadiisa iyo inuu khasaare ku sugan yahay haddii uusan waqtigiisa ka faa'iideysan oo uusan la imaan rumayn, amal wanaagsan, xaqa la isku faro iyo dulqaad. Xirfadda maaraynta waqtiga maalinlaha ah waxaa qayb weyn ka ah sida aad u qorsheynayso una maaraynayso mawjadaha iyo caqabadaha nololeed ee ku soo food saaraya 24 saac ee kasta. Haddaba sida aad u maamusho waqtigaaga iyo shaqooyinkaaga u qaybi qaanadahan soo socda. Maarey markiiba waxaa jira waxyaabo muhiim ah degdegna ah oo aad ku khasban tahay inaad degdeg wax ugu qabato adiga oo hawsha maalinlaha wata, sida shaqo aadan filayn oo kugu soo baxday iyo qof qoyskaaga ama ehelkaaga ka mid ah oo xanuunsaday. Xoogga saar ilaa aad ka guul gaarto. Waxaa jira waxyaabo muhiim ah balse degdeg ahayn. Waa qaybta ugu muhiimsan ee mustaqbalka qofka, waana mid laga doonayo inuu niyadda ku hayo qofka waxtarka leh, sida inaad jaamacad dhamayso, reer inaad dhaqato, dhaqaale inaad tabacdo iyo inaad hogaamiye noqoto. Arrimahani degdeg ma aha, laakiin waa yool muddo kadib ay suurtogal tahay inaad gaarto. Ka tanaasul inaad waqti ku bixiso. Waxaa jira waxyaabo aan muhiim ahayn laakiin degdeg ah oo maalinta ama habeenka aad ku sugan tahay ku eg. Runtii waxyaabahani waa kuwa ugu badan ee dhalinyarada waqtigooda ka dila, sida ciyaar raacaysa iyo musalsal muddo soconaya oo habeenkii la daawanayo. Inta aad xadidi karto xadid. Waxaa jira waxyaabo aan muhiim ahayn, degdegna ahayn oo waqti fara badan maalin kasta ka qaada. Qofka haddii uusan lahayn qorshe uu ku maareeyo waqtigiisa qaaliga ah, waxaa ka mid ah fadhi ku dirirka, TV-ga, isticmaalka badan ee baraha bulshada.